gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo maalmihii la soo dhaafay ku maqnaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee Beledweyne ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka kan degmada dhalinyarada ururada bulshada haween nabadoono iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada intaas kadib gudoomiyaha ayaa gacan qaaday ciidamadii iyo shacabkii kala duwan ee soo dhaweeyay waxaana loo galbiyay xarunta maamulka ugu horeyn qaar kamid ah mas'uuliyiinta gobolka iyo kan degmada ayaa gudoomiyaha ku soo dhaweeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wadana gudoomiye ku soo dhawow dadka reer Hiiraan runtii aad bay ku sugahayeen wax qabadkaadii iyo howlkarnimadaada bay sugahayeen annagana sidoo kale waa ku sugayni dadkan inta hadda taagan ma aan inta banaanka taagan in kale oo kulma doontaba waxay sugahayeen inaad soo laabato soo noqdo nabad ay ku lahaayeen annagana waxa ku leenahay gobolkaadii ku soo dhawow mudane gudoomiye ku soo dhawaaw gobolka Hiiraan khaasatan degmada Beledweyne gudoomiye isagoo safar shaqo ku maqnaa ayaa waxaan maanta si mugi miisaan ugu soo dhaweynay magaalada Beledweyne gudoomiye markoodi mar labaad soo dhawaaw waa magaaladaadii waa magaalada ka tagtay waa magaalada ugu maqneed shaqada waxaan isleeyahay wax kugu seegan ma jiraan waa ku sugeynay waa ku daahsanay aadan ku soo dhaweynaynaa mudane gudoomiye waxaan ku leenahay annagoo isku duuban dhammaan shacab weynaha reer Beledweyne siday dhalinyaro iyo odayaal iyo waxgarad ay u leeyihiin sida aragtaba waxaan isku soo banaan baxnay inaan soo dhaweyntaada aan u istaagno runtii waxaan ku leenahay soo dhawow annagoo ku hadlayna magaceena iyo kan gobolka markaste waxaan kula garab taaganahay wada shaqeyn bulshada mas'uulka u nahana sidaas oo kale ayagana waxay sugayaan dadaalkaas iyo shaqadaas saadarteed ku soo dhawow ilaa xilliga heegan lagu jiraa ku soo dhawow magaaladaadii gacmo furan ku soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow farxaday noo tahay inaan kugu soo dhaweeyno airportka waxa dib inoogu soo noqday gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo safar shaqo inoogu maqnaa muddo gaaban mudane gudoomiye ku soo dhawow gobolkaadii waa soo dhaweyn maanta wixii kala dib ayaan iskaga sheegi doonaa dawladnimo maanta waa soo dhaweyn aadan ugu faraxsanahay imaashada inaad adoo nabad ah aad dib noogu soo noqoto waxaan leenahay gudoomiye mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ku soo dhawow gobolka Hiiraan waa gobolkii aad gudoomiyaha ka ahayd gabagabadii gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa ka hadlaya falalka amni darro ee ka dhaca mararka qaar magaalada isagoo dalbadaya in si wada jir ah looga shaqeeyo aniga waxaan tagay magaalada Muqdisho meel kale ma tagin waxyaabaha aan raadinayana waxa kamid ah sidii security-ga wax looga qaban lahaa iyo sidii dadka Soomaaliyeed loo heshiisiin lahaa qaasatan kuwa reer Hiiraan waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol lama helo ilaahay un bay u sugnaatay inuu boqolkiiba boqol heli karo laakiin annagu wixii oo ujeedadii aan lahayn inaan gaari karnaa muhiim waxaan isleenahay ama aan ku rajo weynahay safar guul darro inuusan ahayn ee aan wax ka qaban karno arrimaha hadda aan carabka ku dhuftay aan ka qaban doono haddii Alla idin xagga security-ga haddaan ku hormaro waxaan rabaa reer Hiiraan waxa la dagaalamay shabaab yani ama hadda difaacyada ku jira waxa ku jira 80% waa dadkii deegaanka 20% ee ciidamada waa marka furmaha laga hadlayo waa 20% waxay difaac ku jiraan haddii aad shalay la dagaalanteen haddana waxa difaac ku jira adinka yihiin magaalada maxay idinku joogan shabaab magaalada waa idinku jiraan waaya habeen walba baba idinku tuuraya waxaan idin leenahay ku dhiirada qoryihiina qaatay ku dhiirada annaguna waxaan idin sii doonaa space qofkii marka aan suuragal ahayn inuu qorigiisa qaato space oo ciidamada amniga ku soo gaarsiin karo ayaan idin samayn doonaa oo hadda taladeeda aan wadnaa
gacanna waxaan rabnaa inaan kula dhiiranno midka qoryaha wata sida awalba ugu dhiiranay gacanna waxaan rabnaa midka jawaasiista ee qaraxa aasaya ee xaggan taagan ee maxay kala ah ee xogta gudbinaya ee qaarkiin laga yaabo inuu idin yiraahdo canshuur keena asagoo hadda taag daran oo dhuumanaya warta nin dhuumanaysa looga baqdaa bilihii la soo dhaafay waxaa hakad ku jiray howlgalladii ay wadeen ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa deegaanka ee al-shabaab looga saarayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan Maxamed Ibrahim Ahmed telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Beledweyne